maayarada magaalada Hargeysa iyo sidoo kale Berbera ayaa gaadhay magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaana ka warbixiyeen sidii loogu soo dhaweeyay. ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin iyo sidoo kale duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo isagu gudoominaya wafdigan ku sugan dalka Belgium. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa safiirka Soomaaliland Cabdi Dacar oo iyo jaaliyadda reer Soomaaliland ee Brussels tagan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay waxa caalamku u sheegayseen ayay Soomaaliland ka jawaabtay. waxa ka dhaadhicisay safiir iyo jaaliyadda reer Soomaaliland waxay tahay baa ka dhaadhiciseen. annaguna hadda halwadeenadii nahay mas'uuliyiintii waxaanu annaguna muujinay Soomaaliland waxay tahay taaba keentay markaa in EU-da annagana lagu macsuumo oo aanu ka mid noqono dawladaha caalamka ee ka midka ah ee lagu macsuumayay. aad iyo aad baan u hambalyeynaa ugu mahadcelinaynaa reer Soomaaliland waxaan leenahay guul iyo gobonimo. safiirka EU-da Maxamuud Cabdi Dacar xaaskiisa iyo dhammaan jaaliyadaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin sida fiican ee qiimaha leh anagoo waqti kooban idiin soo sheegnay aad noogu timaadeen. waxaan leeyahay anagu waxaan u nimid halkan shirkaas oo halkan ka socon doona 3 cisho kabacdina waxaan tagi doonaa Holland amba Netherlands dadku labada magac baa loo yaqaanaaye halkaas aanu iyadana dhow magaalo kamid ah mari doono oo ay nagu soo casuumeen iyagana FNJ oo kaanu ama taanaha nahay FNJ waxa laga yaabaa inaan dhow magaalo kale oo Sweden magaalooyin kamid ah inaanu magno iyo Jarmalka annaguna wixii aanu qabanay iyo waan halka ka soo bandhigi doonaa iyo wixii noo fulay iyo wixii naga dhimanba si aanu experience-na uga kordhisano wadamadan